بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuraة البaqرة. waxaa noogu soo dembaysay reer bani israa'iil oo haddana la yidhi xusuusta nimcadaydii korkiina ahaata, waxaana idinka fadilay caalamkii markaa jiray. ka cabsada maalin aysan nafi naf u gudi karin waxba, aanan laga aqbalayn madax furasho, shafaacana aysan anfacayn, aanana loo gargaaraynin. mid kastoo ayay ka mid ah ayagoo saa xumaanta ugu jiray ibraahim u nisbe sheegan jireen. mid kastaa wuxuu tilmaami jiray inuu ibraahim diintiisa ku taagan yahay. xaaladda noocaasii ibraahim sida uu ahaa ayaana loo tilmaamayaa. waid ibtalaa, wadkur xus rasuulkii allow id wakhti ibtalaa uu jarribou imtixaamay ibraahim rabbuhu, rabbigii bikalimaatin kelimaad uu ku imtixaamay. faatamahunna, wuu taam yeelay. ibraahim imtixaankii wuu ka soo baxay oo wuu ku gudbay. qaala, ilaah wuxuu yidhi innii anigu jaaciluka, waxaan kaaga yeelayaa linnaasi dadka imaaman, hogaamiye. imaam iyo hogaamiye diineed ayaan kaa dhigayaa, ayuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala. innii anigu jaaciluka waa ku yeelayaa ibraahiimow linnaasi, dadka ayaa waxaan kaaga dhigayaa imaaman, imaam baan kaaga dhigi. qaala ibraahim wuxuu yidhi wa min durriyatii, ilmahaygana ilaahayow, carruurtayda xaggoodana ilaahayow imaam ka dhig. qaala ilaah wuxuu yidhi laa yanaalu gaari maysa cahdii, ballantayda iyo imaamka dhigitaankayga addaalimiina, kuwa daalimiintae dulmifalayaasha ah. dadka aan qiimaha iyo wanaagga lahayn ee daalimiinta ah, kuwaa ballantayda gaari maysoo ka dhigi maaya buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. nebi ibraahim baa ilaahay imtixaamay. waid ibtalaa ibraahiima, xus waqti uu imtixaamay ibraahim rabbuhu, rabbigii bikalimaatin, kelimadooyin uu ku imtixaamay. kelimadooyinkani waa maxay? qolaba waxbay ku tilmaamaan say noqotaba. ilaahay baa imtixaamay ibraahim. wixii kelimaad ahaa ee lagu imtixaamayna wuu ku gudbay. wa ibraahiima aladii waffaa, ibraahiimkii oofinta badnaa. faatamahunna, wuu dhammaystiray. boqolkiiba boqol ayuu saaroo imtixaankii ayuu gudbay. qaala wuxuu yidhi marka ilaahay asagoo shahaado siinaaya, innii anigu jaaciluka linnaasi, dadka oo dhan ayaan kaaga yeelayaa imaaman, imaam, hogaamiye diineed ayaan kaaga dhigayaa. qaala wa min durriyatii, carruurtaydana rabbow, carruurtayda xaggoodii qayb ka mid ahna rabbow iiga dhig imaam. qaala laa yanaalu cahdi aldaalimiin, cahdigaygii ballantayda gaari maysa buu yidhi ilaahay kuwa daalimiinta. waid jacalnaa, waxaad xustaa haddana wakhti aanu ka yeelnay albeyta, beytka mathaabatan, mid lagu soo noqnoqdo. beydkani kacbadaa loola jeedaa miday ku soo laalaabtaan linnaasi dadka. wa amnan, aaminna aan ka dhignay, maxal iyo makaan aamin ah oo aan ku nidhi wattakhiduu, war ka samaysta min maqaami ibraahiima, maqaamu ibraahiim, musallaa, makaanu tukad, meel lagu dugta ka dhigta maqaamu ibraahim. wacahidnaa, waan la ballannay ilaa ibraahiima, ibraahim iyo wa ismaaciila, wiilkiisii ismaaciil ahaaba, an tahiraa, inay tahiraan. tahira oo nadiifiya beytiya, beydkayga, litaa'ifiina, kuwa tawaafayee wareegahaya, waalcaakifiina, kuwa caakifiintee ku neg, iyo warukaci sujuudi, kuwa rukuucayee sujuudaya, beydkayga u nadiifiya. shirkiga ka nadiifiya, waxaan habboonayn ka nadiifiya, wasakhda ka nadiifiya. waid jacalnaa, wadkur xus id wakhti jacalnaa aanu yeelnay albeyta, beytka mathaabatan, miday ku soo laalaabtaan linnaasi dadka. aad baa loo yimaadaa.
mar kastaa lagu soo noqnoqdaa, kii tagaba wuu sii jeclaystaa. mathaabatan linnaas wa amnan, iyo mid aamin ah. waman dakhalahu kaana aaminan baa noo imaan doontaa. qof allaala qofkii galaa waa aamin. naftiisaa aamin ah, xoolihiisaa aamin ah, dhiiggiisaa aamin ah. mid aamin ah buu ka dhigay. cooskeedii qodaxdeeda in la gooyaa mamnuuca xaramka, ugaarteeda in la ugaarsadaa mamnuuca. waxyaabo fara badan ayaa la tilmaamayaa. wa amnan waاttakhiduu ka samaysta min maqaami ibraahiima, maqaamu ibraahiim musallan makaanu tukad. mar kastoo qofka tawaafahaya ama cimraysanaya xaj ama xajinaya kacbada uu tawaafo, waxaa loo sunneeyaa 2 rakacadood inuu ku tukado maqaamu ibraahiim gadaashiisa. waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa. cumar waatuu yidhi waxaan la waafaqay rabbigay 3 waxyaabood. aayadda xijaabka waxaan la waafaqay oo kale. waxaan idhi rasuulkii allow haddaannu ka samaysana maqaamu ibraahiim meel lagu tukada ka waran. waxaa soo degtay waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa. wacaahidnaa, waan kula ballannay ilaa ibraahiima, ibraahim xaggii iyo wa ismaaciila, wiilkiisii ismaaciil ahaa, an tahira inay tahiraan oo ay nadiifiyaan beytiya beydkayga. waxaad u tahirtaan ood beydkayga u nadiifisaan liltaa'ifiina, dadka taa'ifiintee tawaafahaya, kuwa wareegaya suuragala ama kuwa bannaanka ka imaanaya in loola jeedo. waalcaakifiina waa kuwa nig ama markaa dhex fadhiyaba. iyo warukaci sujuudi, kuwa rukuucaya sujuudaya macnaha ku tukanaya. waid qaala ibraahiimu, wadkur xus id wakhti qaala ibraahiimu, ibraahiim uu yidhi rabbi jacal, rabbiyow yeel, haadaa midkani baladan, beled ka dhig, aaminan ee aamin ah. rabbiyow kani beled aamin ah ka dhig. warsuq, allow quudi oo ku arsuq ahlahu, ehelkiisana min athamaraati, himaarta iyo miraha xaggooda. man quudi ilaahayow aamana rumeeyey, oo minhum ayay ka mid ah, billaahi ilaahay rumeeyey, iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambee aakhiro. qaala ilaah wuxuu yidhi waman kafara, qofkii kufriyana fa umaticuhu, waan u raaxaynayaa qaliilan in yar. waxaan adduunka iyo risqiga iyo waxa saaran alla agtiisa wax weyn kama aha. haddii ilaahay adduunka fadli ahaan iyo wanaag ahaan uu ula ekaan lahaa janaaxa bacuuda, dhilmaanyo ama kaneecab garadkeeda, kaafir galaas biya lagama siiyeen. laakiin sababta dahabkii doolarka loogu taxay waxay tahay alla agtiisa qiimo maba ka lahanba adduunka. qaala waman kafara, qofkii kufriyana fa umaticuhu, waan u raaxayn buu yidhi ilaahay qaliilan in yar. uma intaa ka bacdi adtaruhu, waxaan u dhibaato gelinayaa oo loo dhibaato gelinayaa ilaa cadaabi annaari, naarta cadaabkeeda. wa bi'sa almasiir, meel la ahaadana naartaasaa u xuno u baas leh. masiir iyo meel ay ahaadaanay ku dhammaadaanay ku intihoodaanna meeshaasaa u baas leh buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waid qaala ibraahiimu, waxaad xustaa wakhti ibraahiim uu yidhi rabbi rabbiyow ijcal yeel haadaa midkan baladan, beled ka dhig, aaminan ee aamin ah. nebi ibraahim xaramkuu u ducaynayaa, beledkaa ayuu u ducaynayaa maka ah. wuxuu ugu ducaynayaa inuu ilaahay ka dhiga mid aamin ah. warsuq ahlahu, ehelkiisana allow ka quudi oo ka sii min athamaraati, midhaha xaggooda. man ilaahayow quudi qof aamana rumeeyey, oo minhum ayay ka mid ah, billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro. ibraahiim wuxuu tilmaamayaa mu'min keliya in wax la siiyo. qaala ilaah wuxuu yidhi waman kafara, qofkii kufriyana fa umaticuhu qaliilan, in yar baan u raaxayn. intaa yar xataa 1,000 sano adduunka ha joogee waa loo raaxaynayaa, wax yar uunbay la mid tahay. uma adtaruhu, kadibna waxaan u dhibaato gelin ilaa cadaabi annaari, meesha masiirkiisee uu dhibtoonayo waa naar cadaabkeeda. wa bi'sa almasiiru, meel masiir ah oo la ahaadana cadaabkaasaa u xun buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waid yarfacu, waxaad xustaa haddana wakhti id wakhti, wadkur xus id wakhti yarfacu uu kor qaaday ibraahiim alqawaacida, aasaaskii oo min albeyti, beytka markaa ah, iyo wa ismaaciilu, asagii wiilkiisii ismaaciil.
ayagoo odhanaya rabbanaa rabbiyow taqabbal minnaa naga aqbal innaka adiga anta adigu assamiicu alcaliimu alla samiicahoo maqal badan oo cilmi badan baa tahee ilaahayow camalkan fiican iyo waxaan aan qabanayno ducadeenna iyo cibaadadeenna rabbow naga aqbal. ibraahiim ismaaciil oo canug yar ah iyo hooyadii haajiruu meesha uga soo tegey. dhowr jeer ayuu booqasho ugu tegey. mararka ka mid ah mararkii uu booqday ayuu u tegey asagoo gamuunkiisa qorqoranaya ismaaciil. kolkaasuu yidhi ilaahay wuxuuna amray ani iyo adigaba inaan qawaacidkan iyo beydkan dhisno. ibraahiim wuu dhisayey, wiilkiisii ismaaciilna dhagxaantuu u dhiidhiibahayey. dhagaxa uu ku istaagahayay mar allaala markuu kor noqduu gaari waayey ayuu ku istaagay si uu dhagaxasuu u saaro bulukeetiga uu u sii dhiso. waa meesha maqaamu ibraahiim ahoo ilaa lugihiisa hadda ay ku yaalaan ee meesha laga arko. waid yarfacu waqti xus uu rafacay uu kor u qaaday ibraahiim alqawaacida min albeyti, qawaacidkii aasaaskoo beytka xaggii ah waa kacbade. asaga iyo wa ismaaciilu wiilkiisii ismaaciil ahaana saacidaayey, dhagxaantana uu u dhiidhiibahayey ayagoo odhanaya rabbanaa rabbiyow taqabbal naga aqbal minnaa xaggeena innaka adiga anta adigu assamiicu alla maqal badan baa tahay alcaliimu ee cilmi badane. rabbanaa rabbigeenow wajacalnaa waxaad naga yeeshaa ood naga dhigtaa muslimayni laba kuu hoggaansan. rabbana rabbiyow wajacalnaa naga dhig muslimayni laba muslimiin ah, laba kuu hoggaansan laka adiga, wa min durriyatinaa carruurteenna xaggoodana ummatan allow ummad ka yeel oo ka dhig muslimatan laka adi kuu hoggaansanoo muslimiinkuu ah. wa arinaa ilaahayow na tusi manaasikanaa acmaalaheena, acmaasha xajka iyo waxa la qabtee la sameeyana rabbiyow na tus. watub calaynaa nagana towba aqbal dusheena innaka adiga anta adigu attawaabu alla tawaab ahoo towbad aqbal badan baa tahay alraxiimu ee naxariis badani. markay dhiseen yay ilaahay ka baryayaan laba muslimiin inuu ilaahay ka dhigo ayag asaga u hoggaansan, carruurtoodana in ummad muslimiina looga dhigo, in la tusiyo acmaasha xajka say u qaban lahaayeen. jibriil baa loo soo diray, kolkaasuu tusiyey waxay samayn lahaayeen. naga towba aqbal bay dhaheen innaka adiga anta adigu attawaabu alraxiimu alla tawaab ahoo naxariis badan baa tahay. rabbanaa rabbigeeyow wabcad dir fiihim dhexdooda waa ummaddiiye rasuul oo minhum ayay ka mid ah. inay nebi moxamed tilmaamayaan ayaa suuragal ah. rasuulan rasuul oo minhum ayay ka mid ah, yatluu akhriya calayhim korkooda aayaatika aayaadkaaga, wayucallimuhum alkitaaba kitaabkana bara, iyo walxikmata sunnada kitaabka iyo xikmada bara, wayusakiihim tahiraya innaka adigu anta adigu alcasiizu alla casiis ahoo amarkiisa qaalib ah yahay ayaa tahay, alxakiimu ee fal fiicane. ma u jeedaan ibraahiim wuxuu ku socdo sida uu rabbi u baryaayo, waxyaabaha ilaahay uu ka baryaayo. waman yarqabu marka yaa nacaya, war yaa diidayoo ka fogaanayoo nacaya can millati ibraahiima, ibraahiim milladiisa, diinta ibraahiim kee nacaya marka? ilaa man maahane safiha dabbaaloobay nafsahu nafsadiisa, mid iska doqomooboo maangaab noqdoo nafsadiisii dabbaaloobay ma ahee yaa nacaya diinta ibraahiim. walaqad istafaynaahu waanu dooranay ibraahiim fi ddunyaa adduunkaanu ku dooranay, wa innahu ibraahiim asagu fi laakhirati aakhirana la min alsaalixiina saalixiintuu ka mid yahay. aakhirana kuwa saalixiintee suusuubanee tootoosan ee ilaahay khayrka iyo wanaagga ku abaalmarinaya ayuu markaa ka mid yahay. ibraahiim xaaladdaasuu ilaahay ku tilmaamayaa subxaana wa tacaala. marka diintiisa cid nacdaayi ma jirto ilaa doqon maahane, ilaa dabbaal maahane, ilaa mid nafsadiisay maangaabowday. walaqad istafaynaahu fi ddunyaa adduunkaanu ku dooranay, wa innahu asagu fi laakhirati aakhira la min alsaalixiina
saalixiinta mid ka mid ah ayuu ahaaday id waqti buu ilaahay doortay ibraahiim qaala uu u yidhi lahu asaga ama id waqti balxus qaala lahu uu u yidhi ibraahiim rabbuhu rabbigii aslim ibraahiimow hoggaansan ibraahiimow isdhiib ibraahiimow istislaam la imow aslim islaam qaala wuxuu yidhi aslamtu waan islaamay waxaan isu dhiibay lirabbi alcaalamiina caalamka rabbigii khalqay khalqiga allaha caalamkan oo dhan allaha barbaariyaha u ah ee rabbiga u ah allahaasaan u sallimay wawasaa wuu dardaarmay biha taa ibraahiimu ibraahiim baniihi wiilashiisiibuu u dardaarmay islaamnimada wiilashiisiibuu u dardaarmay wa yacquubna wuu dardaarmay yacquubna asagana ilmihiisuu u dardaarmoo yacquub wuxuu yidhi yaa baniya wiilashaydiiyaay ina allaaha astafaa alla wuxuu idiin doortay lakum adinka addiina diin ayuu idiin doortee falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo muslimiin ah maahane ha dhimanina markaad dhimanaysaan ilaa haddaad dhimanaysaan dhinta waxaal antum adinkoo muslimuuna kuwa hoggaansan ah islaamkaasuu ilaahay u dardaarmay ibraahiim baa aslim la yidhi oo islaamay ibraahiim carruurtiisii buu islaamnimada u dardaarmay yacquub baa carruurtiisii u dardaarmay oo yidhi yaa baniya wiilashaydiiyey ina allaaha astafaa alla waa uu doortay lakum adinka addiina diin buu idiin doortaye ku socdoo qaata ku dhaqma falaa tamuutunna hana dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo muslimiin ah maahane am kuntum mase waxaad ahaydeen shuhadaa'a kuwa shuhada ah oo goobjoog ahoo xaadir ah miyaad ahaydeen id waqti xadara ay ku soo xaadirtay yacquuba nebi yacquub almowtu geerida xilligii yacquub sakaraadku ahaa ee geerida ku soo xaadirtay miyaad goobjoog ahaydeen id waqti qaala yacquub uu ku yidhi libaniihi wiilashiisa maa tacbuduuna war maxaad caabudi doontaanood caabudaysaan min bacdii gadaashay ani waa dhiman rabaa waa bixi rabaa waa idin faaruqi rabaa ilmahaygiiyow maxaad caabudaysaan gadaashay qaaluu waxay dhaheen nacbudu waxaan caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga wa ilaaha aabaa'ika aabbayaalkaa ilaahooda ibraahiim ahaa aabbayaalkaagii ibraahiim ahaa wa ismaaciil ilaahii khalqay wa isxaaq ilaahiisaan caabudaynaa ilaahyo badan ma ahee ilaahan waaxidan ilaah keliyaan caabudaynaa wanaxnu anaguna lahu allahaasaan muslimuuna wanaxnu anaguna lahu asagaan muslimuuna nahay kuwa u hoggaansan kuwa u sallimsan oo u hoggaansanoo muslimiin ahoo amarkiisa fulinaya ayaannu markaa nahay tilka taasi ummatun waa ummad war dadkaasuu suuban ee wanaagsan tawxiidka iyo khayrkii alla caabuditaanka ku socday carruurtooda u dardaarmaya tawxiidkii islaamnimada ummatun waa ummad oo qad khalad tagtay war horay u tageen lahaa waxaa u sugnaaday leeyihiin maa kasabad waxay kasbadeen camalkay qabsadeen bay leeyihiin wanaaggoodii baa loogu jaasinayaa walakum adinkuna maa kasabtum waxaad kasbataan baad leedihiina sheegasha wax tari mayso war wixii ay kasbadeen baa lagu jaasin idinkana waxaad abaalqabataan baa laydinku abaalmarin walaa tus'aluuna laydinna su'aali maaya camaa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal qabta war camalkiina hagaajiya tawxiidka iyo tibta toosan qaata awaamirta allana ha dhinac marina waqaaluu waxay yidhaahdeen kuunuu ahaada huudan yahuud noqda aw nasaara ama nasaaro ahaada tahtaduu waad hanuunaysaani war ma rabtin inaad hanuuntaan ama yahuudiyaal noqda ama nasaaro noqda labada unbuu hanuunku ku jiraaye qul waxaad ku dhahdaa rasuulkii allow bal iska daa inaan yahuud iyo nasaaro raacitaankeeda ku hanuunno ama aan raacnee millata ibraahiima nebi ibraahiim diintiisaannu raacaynaa ninkii tawxiidka saa ugu soo halgamay rabbi in badan ku xirnaa ilaahay doortay aakhiro saalixiinta ka mid ah kaabaannu diintiisa raacaynaa xaniifan
xaal uu yahay mid xaniif ah ibraahim, mid ka soo leexday shay kasta oo baatil ah iyo diin walboo baatil ah, una soo iishay hoggaankii iyo wanaagga. wamaa kaana ibraahim min almushrikiin, mushrikiinta ka mid ma ahayn. quuluu dhaha aamanaa waan rumaynay billaahi, ilaahay baan rumaynay, wamaana waa rumaynay unsila la soo dejiyey ilaynaa xaggeena, wamaana waa rumaynay unsila loo soo dejiyey ilaa ibraahiima, ibraahim xaggiisa, wa ismaaciila iyo ismaaciil, wa isxaaqa iyo isxaaq, wa yacquuba iyo yacquub, iyo waalasbaati carruurtii yacquub, wa awlaaddiisii, wamaa uutiya wixii la siiyeyna waan rumaynay muusa nebi muuse, wa ciisa nebi ciise, wamaana waa rumaynay wixii uutiya la siiyey annebiyuuna nebiyaashii min rabbihim, rabbigood xaggiisa wixii laga siiyey, kaana markaa waa rumaynay. laa nufariqu kala qaadqaadi mayno, laa nufariqu kala geyngeyn mayno, kala ququbi mayno, laa nufariqu kala qaadqaadi mayno, kala geyngeyn mayno, bayna axadin axad baynkii oo minhum ayay ka mid ah. wanaxnu anaguna lahu allahasa muslimuuna, kuwa muslimiin ahoo u hoggaansan aanu nahay. fain aamanuu hadday rumeeyaan, haddii ay u rumeeyaan bimidli maa aamantum bihi, saad u rumayseen oo kale, faqad ihtadow way hanuuneen. idan waxa lagu dayda waa salafka saalixa ah, waxa lagu dayda waa nebiyadii, waxa lagu dayda waa saxaabadii nebiga la noolaa. dadkaasay u rumeeyeen oo kale in wax loo rumeeyaa loo baahan yahay. fain aamanuu hadday rumeeyaan bimidli maa sidii oo kale aamantum bihi aad u rumayseen idinka, faqad ihtadow way hanuuneen. wain tawallow haddiise ay jeestaan, fainnamaa hum in kale ma ahee ayagu fii shiqaaqin khilaaf bay ku jiraan. fasayakfiikahum ullah, fasayakfiikahum allaahu, ilaahayna wuu kaa kaafin doonaa subxaana wa tacaala. ilaahay baa kaa kaafinaya oo kaa celinaya. fasdac bimaa tu'mar waacrid cani almushrikiin, innaa kafaynaaka almustahzi'iin, kuwa jeesjeesaya annagaa kaa kaafinayna buu yidhi ilaahay. wain tawallow haddiise ay jeestaan, fainnamaa in kale maba ahee hum ayagu fii shiqaaqin khilaaf bay ku jiraan, shiqaaq iyo dhinactan bay ku jiraan, inay dadkii toosnaa ay ku dayan waayaanay dhinac marin bay ku sugan yihiin. fasayakfiikahum allaahu, ilaahayna wuu kaa kaafin. wahwa ilaahay assamiicu, waa alla maqal badan, alcaliimun ee cilmi badan. sibqat allaahi, diinta ilaahay laazima, alzimuu sibqat allah, ama raaca sibqat allaahi, ilaahay diintiisa. waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi, alla xaggiisa sibqatan xagga diinta. wanaxnu anaguna lahu allahaasaan caabiduuna nahay kuwii caabudaya. sibqat allaahi, rinjiyayntii alle. sibqa sidiisa waa rinjiga, calaamayntii, nashqadayntii, diintii alle. waman axsanu min allaahi sibqa, war yaa kaga wanaag badan ilaahay xaggiisa xagga rinjiyaynta, xagga sibqiga, xagga diinta. wanaxnu anaguna lahu allahaasaan ama asagaan caabudaynaa. qul waxaad dhahdaa atuxaajuunana, ma waxaad nagula murmaysaan oo aad nagula doodaysaan fillaahi ilaahay waxdaaniyadiisa, war jiritaanka alla miyaad nagula murmaysaan? waxaal huwa ilaahay rabbunaa, rabbigeen uu yahay, wa rabbukum rabbigiinna uu yahay. waxaana mideeyey waa allah, waxaana laka doonaya waa inaan ilaahay labadeennaba isla wada caabudnaa, waa inaan addoommo u noqonaa. ma allahaasaad naga xigtanood nagula murmaysaan? qul atuxaajuunana, ma doodaysaan oo ma murmaysaan, ma waxaad nagula xujaytamaysaan fillaahi ilaahay waxdaaniyadiisa, jiritaankiisa. wahwa asagu rabbunaa, rabbigeen xaal uu yahay, wa rabbukum rabbigiinna uu yahay. walana waxaa noo sugnaadoon leenahay acmaalunaa, acmaasheena, walakum idinkuna acmaalukum, acmaashiinaad leedihiin oo idiin sugnaatay. wanaxnu annaguna lahu allahaasaan mukhlisuuna, asagaan ikhlaas u nahayoon u saafi tiraynaayoon u barax tiraynaa oon saafi uga dhigaynaa diinta raacitaankeeda. am taquuluuna mase waxaad odhanaysaan inna ibraahiima, wa ismaaciila wiilkiisii ismaaciil ahaa, wa isxaaqa
isxaaq iyo wa yacquuba yacquub iyo walasbaata asbaadtoodii kaanuu huudan yuhuud bay ahaayeen huud bay ahaayeen miyaad leedihiin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala aw nasaara ama nasaara mid kastoo ayay ka mid ah ibraahim buu sheeganayaa nin kastoo fisqi baatil kale ibraahim buu ku abtirsanayaa mid kastoo mushriq noqdo oo asnaam kacbada ku dhex caabuda ibraahim buu inisba sheegan way noo imaan doontaa maa kaana ibraahiima yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin yahuudina ma aha nasraanina ma aha mushrikna ma aha muslim xaniif ah waa ibraahim war qof kastoo ku abtirsanaya ibraahim sida uu ahaa ha noqdo saa darteed buu ilaah leeya ma waxaad leedihiin ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo owlaaddii yacquubba kaanuu huudan aw nasaara yahuud iyo nasaaray ahaayeen miyaad leedihiin qul waxaad ku dhahdaa a antum ma idinkaa aclamu ogaal badan am illaahu mase alle ma idinkaa ku cilmi badan mase ilaahay waman adlamu yaa ka dulmi badan miman ruux ka tama qariyey shahaadatan markhaati cindahu agtiisa ahoo weliba min allaahi alle xaggiisa uga timid inuu rabbi u sheegay rabbi xaggiisa uga timid markhaatigaa nin og oo yaqaana haddana qariyey yaa ka dulmi badan buu ilaah leeyahay subxaana wa tacaala ma jiraa axad ka dulmi badan qofka noocaas ah waa ma jiro yaa ka dulmi badan miman katama shahaadatan mid qariyey shahaado iyo markhaati kac cindahu agtiisa ahaadayoo min allaahi alle xaggiisa oga ahaatay wama allaahu ilaahina ma ahaanin bikaafilin mid kaafil ka ah oo ilowsan camaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan oo aad samaynaysaan ilaahay kaafil kama aha ilaahay ma ilowsana subxaana wa tacaala wama allaahu ilaahayna ma ahaanin bikaafilin mid kaafil ka ah oo ilowsan camaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan oo aad samaynaysaan idan digtoonaada camalkiina hagaajiya khayrkii wanaagga ku socda wax walbood qabanaysaan rabbi waa ku cilmi badan yahay tilka ummatun taasi ummad waaye qad khalad tagtay lahaa waxaa u sugnaado ay leedahay maa kasabad waxay kasbatay camal qabatay walakum idinkuna maabaad leedihiin oo idiin sugnaaday kasabtum aad kasbateen waxaad kasbataanood qabataanood camal samaysataan baa idinkana laydinka abaalmarin ee ogaada aabbahay baa sheekh ahaa intaas soo dugsi buu kiciyey dhal iyo farac awliyaanu ahayn intaan ka soo jeednay saasay ahayd waxay anfacaysa ma laha waa ummad tagtay awooba tegayey aabba tegayey aboolan tegayey waxay qabteen bay leeyihiin idinkuna faan wax idinma qabanayee shirkiga ka fogaada tawxiidka u soo laabta diinta dhaqan geliya rabbi ka dambeeya amarkiisa fuliya waxaad qabsataanood kasbataan baad idinkuna leedihiine tilka taasi ummatun waa ummad qad khalad tagtay inay tagtay baa xaqiiqo ah lahaa maa kasabad waxay kasbatay ayaa u sugnaadoo ay leedahay waxay camal qabatay baa rabbi siin subxaana wa tacaala wax allaala waxay samaysataa lagu jaasinayaa lahaa maa kasabat waxay kasbatay walakum idinkuna waxaad leedihiin buu yidhi ilaahay oo idiin sugnaaday maa kasabtum waxaad kasbataan waxaad hadda shaqaysataanoo camal ahaan u qabataan kaasaa idinkana laydinka abaalmarinayaa walaa tus'aluuna mana laydinka su'aalahaya camaa kaanuu yacmaluuna wixii ay ahaayeen kuwa camal qabta idinka laydin weyddiin maayo ayagana la weyddiin maayo saa darteed dadaala oo diinta alla ku socdoo ku camal qabta awaamirta ilaahayna fuliya ummad fiicfiicanoo tootoosan noqda taasi waa ummad horay bay u tagtay waxay kasbatay leedahay idinkuna waxaad kasbatiin baad leedihiin walaa tus'aluuna mana laydin su'aalaya camaa kaanuu wixii ay ahaayeen yacmaluuna kuwa markaa camal qabta qof kale su'aalayaaye ma jiro saa darteed dadaala rabbi baa qof kasta la xisaabtamaya wax allaala wuxuu qabsadaa abaalkeeda la siinayaa diinta ha dhinac marina shirkiga iska ilaaliya sheegasha been ahoo maxabbo alla ha sheeganina rasuulka raacoo ku dhaqma diintiisana fuliya
walaa tus'aluuna laydinka su'aali maaya camaa shaygii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal qabta buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala sayaquulu الsufahaa'u min annaasi maa wallaahum wabillaahi الtawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.